kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ee loo yaqaano Birmadka ayaa waxa ay galeen heegankii ugu sareeyay kadib markii dhaqdhaqaaq ay bilaabeen ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo howlgallo ballaaran oo dhinaca amniga ah oo ka socda gudaha magaalada Baydhabo bandow lagu soo rogay magaalada Baydhabo iyo dhaqdhaqaaq ah oo dhammaan loo diiday dadka shacabka ah maadaama munaasabada caleemasaarka ay ku beegan tahay maalinta berita ah lana filayo in lagu qabto munaasabada lagu caanashubayo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe magaalada Baydhabo barnaamijkeena xulashada ayaan ku dul istaagi doonaa qodobadaasi oo ku eegi doonaa hase ahaatee aan ku hormarno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Birmadka ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq xooggan oo lagu xoojinayo amniga magaalada Baydhabo iyagoo oo sidoo kale ciidamada Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ay isku dayayaan in magaalada ay ku qaadaan weeraro culus si ay u baajiyaan munaasabada caleemasaarka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo loo balansan yahay berrito oo isniin ah ciidanka Cabdicasiis ayaa waxa ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay weeraro ay ku qaadaan dhinacyada gudaha iyo banaanka magaalada iyo waliba fariisimaha ciidamada hase ahaatee ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka gaashaamanaya arintaasi iyo ciidanka Birmadka koonfur galbeed ayaa iyaguna waxa ay deegaano kala duwan ay ka wadaan howlgallo looga hortagayo sidii ciidankaasi aysan wax dhibaato ah oo dhinaca amniga ah uga geysan lahayn gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaanada ku dhow waxaa si toos ah qadka telefoonka ugu jiro oo ka wareysan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Jamaal oo hadda si khadka toos ugu jira Cabdi Jamaal bal soo dhawow waxaad war naga siisaa wararkii ugu dambeeyay ee koonfur galbeed iyo waliba dhaqdhaqaaqa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu wado iyo ciidanka Birmadka koonfur galbeed iyo waliba halka ay ku sugan yihiin ciidanka Cabdicasiis Lafta Gareen oo iyagana la sheegayo in ay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay ku baajiyaan munaasabada caleemasaarka ee Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe Baydhabo xarunta maamulka goboleedka koonfur galbeed saad sheegtay wufuud kala duwan ayaa gaartay oo ay ku jiraan madaxweynayaal maamul goboleedyada qayb kamid ah oo halkaasi gaaray iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Mungaab waxaa halkaasi tegay wasiiro iyo xildhibaano kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada waxaana lagu wadaa in maalinta berri halkaasi ay gaaraan wufuud aad u badan oo iyana ka imaanaysa beesha caalamka iyo hoggaanka ugu sarreeya dalka marka wufuud intaas aan uga tagno magaalada Baydhabo waxa ka cusub caawa waa in ammaankeeda aad loo adkeeyay gaar ahaan 24 saac ugu dambeeyay si gaar ah ayaa ammaankeeda loo sugayay haddii aalaheed duleedka magaalada Baydhabo oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ee isku dhafka ay ka wadaan howlgallo adag oo ay halkaasi ammaanka ku sugayaan si looga hortago ciidanka Lafta Gareen oo muddooyinka ugu dambeeyay caadaystay inuu weeraro ku soo qaado gudaha magaalada si looga hortago oo aysan u suurtagelin inay hoobiyaal ku weeraraan magaalada gudaheeda waxaa ka jira Baydhabo baaritaano adag oo dhowr qaybood isugu jira qaybta koobaad waxaa la baarayaa gaadiidka oo dadka ayaa laga dejinayaa waana la baarayaa sidoo kale goobaha u dhow meelaha caleemasaarka lagu qabanayana waa la wada baaray guryaha oo ciidanka dowladda ayaa baaraya ciidamada baaritaanka sameynayana waxa ay hogaaminaya guutada 77 ee madaxtooyada Soomaaliya oo halkaas horeba sii gaartay si ammaanka loo xaqiijiyo madaxweynaha madaxda halkaas ka qayb galaysa waayahay waxaa tagay magaalada wafdi kala duwan iyadoo oo wufuudda qaarkood ay ciidamo culus ay wataan maxay tahay sababta istaafyada ugu badan ay mas'uuliyiinta ka qayb galaysa munaasabada caleemasaarka ay u qaateen Axmedow laba arrinba waa loo cilay karaa waa marka koobaad waxaad moodaa hogaamiyaasha Soomaalida inay iska koobiyayaan dhaqamada la xiriira markuu mid la yimaado hal tilaabo oo qaado saad ogtahay xilliyada munaasabooyinka waaweyn garaan shirarku ay ka dhacayaan magaalada Muqdisho ayaa Saciidani iyo Axmed Madoobe waxaa lagu dhaliili jiray inay hub badan u soo qaataan magaalada Muqdisho xilliga imaanayaan waxaad moodaa marka
arrintaas inay noqotay mid mashruuc iska noqotay oo siyaasiyiinta gaar ahaan hogaamiyada dowlad goboleedyadu oo mid walba doonayo meesha uu aadayo dhoolatus ciidan inuu sameeyo oo hub badan ay la soo raacaan diyaaradaha. aada waxa loola yaaba ayay ahayd hubkii oo halkaasi la yimid cabdulqaadir oo cali firdhiye hogaamiyaha dowlad goboleedka waqooyi bari. aada baa loola tacajubay iyadoo xaalku uu aada loola yaaban yahay ayaa hubkii mid lamida waxaa lasoo degay hogaamiyaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guulaawe xuseen. marka waa caade ay ka dhigteen inay ay midda koowaad oo laga dhaxlay axmed madoobe iyo sidoo kale saciidani. qodobka kale xaalad amni darro ayaa ka jirta magaalada baydhabo. hadda ciidamadii koofiya gaduuda ee la socotay firdhiye, kuwii la socday cali guulaawe xuseen, kuwii hore u waardiyeynayay sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, kuwa guutada 77 oo madaxtooyada, waxaa la ii sheegay in ay looga dhigay taliyihii hogaaminayay ciidamadaas kuwa madaxtooyada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. laakiin dhammaan koofiya gaduudii waardiyeynaysay madaxda halkaasi gaartay ayaa goob qura ammaanka sugaya. waxaana shir gaara la yeeshay hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, isagoo u sheegay inay muhiim tahay inay iyagu si wada jira u wada shaqeeyaan, weliba iyagoo kaashanayo koofiya gaduuda koonfur galbeed. waa tahay haddii aan intaas uga nimaadno munaasabadda caleemasaarka ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada koonfur galbeed dhaqdhaqaaqyo ayay wadeen galabta oo aada u xoogan oo ay ka wadeen deegaano kala duwan oo ku teedsan baydhabo. maxaan kala soconnaa arrintaas? axmedow, ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay oo iyaga koonfur galbeedba waxay wadeen dadaalo lagu xaqiijinayo amniga. gaar ahaan labadii maalin oo u dambeysay ayay howlgalka aada u xoojiyeen. waxay uga duuneed marka maantay ma jirin dagaal ka dhacay duleedka magaalada baydhabo, laakiin waxaa laga gaashaaman yahay waa inay hoobiyaal ay soo tuuraan ciidanka laftagreen. xog la hele ayaa jirtay oo muujinaysay in hub imaaraadku uu ugu daaqay laftagreen lasoo gaarsiiyey ciidankiisa ku sugan duleedka magaalada baydhabo. hubkaasna la sheegay inuu yahay hub casri ah oo ay awood u leeyihiin inay meel fog ay toogasho ay ka sameeyaan oo ay hubkaasi ay kusoo tuuraan magaalada. marka qiyaasta xogtii la helay ayay intii ku filan isku dayayaan ciidanku inay arrintaasi wax ka qabtaan. midda kale oo xusuuda mudana waxay tahay sida muuqata ciidamada naftirkooda waxaad u moodaa inay hadda aysan dooneyn inay dagaal galaan oo ay sii fogaadaan oo ay meel fog tagaan. cabasho badan oo soo taraysaana jirta oo haddiiba kasoo yeeraysa dadkii iyo deegaanadii ay tageen. dadkii beeraleyda ahaa ee duleedka baydhabo iyo meelihii ay tageen deganaa ayaa aada uga cabanaya oo waxay leeyihiin ciidamadii gaadiidka watay iyagoo sidooda u socda ayay beerahanagii baabi'inayaan oo beerihii ayay dhex marayaan. marka dad beerihii soo sawiraya ciidankiina ka cabanaya ayaa isla mar ahaantii issoo tartay. sidaas daraaddeed waxaa lagu xakameeyey inaysan dadkana dhibaateyn iyana ay amniga ka sugaan halkii loogu talagalay. waa tahay ugu dambeyntii ciidanka cabdicasiis laftagreen iyaga xaggee ayay ku sugan yihiin hadda? maxayse tallaabaha ay qaadi karaan marka loo eego dhinaca carqaladeynta xafladda caleemasaarka? ciidanka laftagreen horta inta badan ayaga asalka meesha saldhigoodu ah waa ceeldoonna waad ogtahayoo wax ka yar 20 kilomitr ay u jirtaa magaalada baydhabo. waxay kamid tahay deegaanada duleedka magaalada baydhabo aan sidaas uga fogeyn. laakiin marka laga hadlayo gurileyn ayay ku shaqeynayaan oo waa ciidan difaacada ku jira. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan ceeldoon ka joogin, iyadoo ceeldoonkii laga raadinaya ayay waxay kasoo baxayaan meelaan laga filayn. yacni waa ciidamo hab gurileyna u shaqeynaya oo raba inay duurkaas ku kalluumaystaan. magaalada xilliga jaaniska ay ka helaanna ay soo weeraraan. arrinta xusuuda mudana waxay tahay inta badan weerarada ka dhacaya magaalada inay xogtu magaalada ka baxaysay. waxaa la ogaaday xog baxday oo jirtay qorshe ayuu sameeyey hogaamiyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sheekh aadan maxamed nuur. xogta ugu dambeysay waxay ahayd in ciidanka iyagoon cid wargelisaa jirin barta ceeldoon ay ka degan yihiin weerar cad lagu qaado.
isla mar ahaantii inta ciidankii magaalada aysan ka dhamaan ayay ogaadeen ciidanka Laftagareen in weerar culus lagu soo yahay sidaas daraadeed eryadii ayay baneeyeen wixii maalintaas ka dambeysay oo 2 maalin ka hor ahayd waxay u moodaa ciidamadu inay garawsadeen in xogtu ay banaanka u baxayso sidaas daraadeed waxay ku ekaanayaan goobaha ay u suurtagelaysaa inay ammaanka ka sugaan laakiin laftakoodu ma doonayaan hadda inay baacsadaan ciidanka Laftagareen